soo dhawaada saaxiibayaal halkan waxaa shir jira isku qabanay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka mucaaradka waxa uu ajandaha kulankooda waxa ay halkan uga hadli doonaan haddii la yiraahdo universal iyo daawanaysa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنت وحنا كان قبلنا شجرة كلنا مسؤولين مادين ثلاثة بدرات قرن ولايات البرلمان الفدرالي الصومالية وأنا أرسلنا حالة كسر قرية سياسة الصومالية معلومه لصودا في سبيل sidoo kale marxaladan kala guurka runtii aad ka badan dalkeena iyo dadkeena maanta ay ku sugan yihiin waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa qodobo ka soo baxay shirkan kutbada golaha baarlamaanka dalka Soomaaliya maanta ku yeelatay magaalada Muqdisho marka koowaad waxaan soo dhaweynaynaa golaha badbaado qaran oo aan dad u taagan badbaadinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo qabashada doorasho xor iyo xalaal sidii dalka uga dhacay sidoo kale maantay mudanayaasha wada aqada baarlamaanka federaalka ee guddiga badbaado qaran halkan ku saxeexeen petition lagu calaynayo mowqifka badbaado qaran iyo sida dadka Soomaaliyeed loo badbaadin karo attack soo folka petition-kan waxaa ku jira baaqan durayna dadka Soomaaliyeed dowlaha iyo hay'adaha dawliga ee Soomaaliya si aan u cadeyno khatarta farqada ku yahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo qoriga dabka leh ee uu la meehanaadayo sidii dalka iyo dadka Soomaaliyeed looga badbaadin fidnada hormuudka uu ka yahay ee la doonayo dalka in lagu celiyaan iskaga kaashan lahaa sidii looga hor istaagi lahaa sidoo kale waxaan baaqanaga ku cadeynay ama ku cadeynaynaa ugana digaynaa saraakiisha farmaajo u adeegsanayo burburinta dalka iyo adeegsiga awoodda ciidan ee baalmarsan shuruucda dalka iyo hay'adaha dimuqraadiga ah ee urdunka ee dalka Soomaaliya kaana qaaday muddooyinkii la soo dhaafay waxaan leenahay nimaan idin doonin iyo idin raay damiga aad ka gashiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed berita adinka ayaa la idin kula xisaabtami doonaa ee farmaajo idin kama difaaci doona waxaan sidoo kale halkan ka cadeynaynaa oo kutladu ka cadeynaysa inaanan aqbalaynin muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dawladda ee farmaajo u gadaal ka riixay doorashadan uu ku diiday waxaan uga digaynaa guddoonka baarlamaanka federaalka inaan dalkan lagu dumin gacmahooda mana shaqayn doonteen waxaan idin leenahay ceeb iyo foolxumo ummadda Soomaaliyeed idinkuna u soo jeedinina dalka iyo dadkana ceeb aysan ka soo waaqsan karin gorodda u gelinina ayaan idin leenahay ee walaalayaalow dalka u tura dastuurka hogaansama haddii aad ka shaqaynaysiin sidii loo tabantaabi lahaa ama dadka la isugu keeni lahaa mas-uuliyaddeeda qayb inaad ka qaadatiin laakiin aadnan hormuud ka noqonin fitno dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu duminay aad iyo aad u mahadsantihiin xildhibaanada u baxay kutlada badbaadada ayaa halkan waxay ku yeesheen oo ah Hotel Jazeera shir ay ugu arrinsanayeen xaaladda dalka martiyeedka aad aragteen oo
xildhibaan mahad akhriyay warbixin ayay soo saareen waxaad nagala socotay Universal TV aad u mahadsantihiin saaxiibadana daawanayay